aad iyo aad ayaannu ugu faanaynaa ka dhalashada aannu ka dhalannay shacbiga soomaaliyeed oo aan marna ka haraynin dantiisa in kastoo laysku dayo in la qaybiyo ama qaar yar yara gees loo leexsado haddana shacbiga soomaaliyeed mar kastaba waa garanayaa qiimihiisa dadnimo iyo qiimihiisa waddaninimo iyo qiimihiisa geesinimo iyo qiimihiisa garadnimo mar kastaba hadduusan garanaynin waa horaa laga takhallusi lahaa jaalayaal dhibaatada geeska afrika ka taaganu waxa weeyaan mid ay xabashidu sal u leedahay ayna taariikhna u leedahay dhibaato kaloo geesta afrika ka taagnayd marna ma ayan jirin waxaa dhibaato kasta abuurahayey ama dagaal kasta abuurahayey waxay ahayn xabasho oo mar kastaba qolo ciddiyaha ku jiidanaysay ama khiyaanadeeda faraha badan iyo dulumkeeda ay ku duqowday mar walba qolo kale soo xaabsanaysay weligeed xabasho uma ay helin awood ay iyadu waxa ay doonayso keligeed ku maroqsato ama ku fulsato laakiin weligeed qolay dabada ku jiidan jirtay saasayna dhibaatada taaganka ahaa oon marna kala goolahayn taariikhda markii dib loo raaco aan geeska afrika uusan nabad iyo xasiloonaan marna uusan u helin haatanna annagu kenya waxba badan ka sheegi mayno waxaannu laakiin ka sheegaynaa amxaaro xabasho oo weligeed fidnaasaloo ahayd haatanna xididada runta ah ee dhibaatada geeska afrika ka taagan ay tahay iyadu sababtoo ah isticmaar bay ahayd isticmaar bay tahay isticmaar bay noqon doontaa waxaad ku garataa nin meel isticmaar joogaba dagaalku saanu uga taagan yahay geeska afrika isuga taagan yahay waxa weeye suud afrika uu ka taagan yahay wuxuu ka taagan yahay bariga dhexuu ka taagan